nimankii difaaciina iyo nimankii xagga dowladda ka socday waan dhegeystay dee marra ismaan odhan cabdimaalik ayaa lagu xukumaya ninkii samafalaha ahaa 2 sano marra maskaxdeeda kuma soo dhicin hadday sameeyaan xoonay bil abaynta xidhnaa ama 2 bilood ayay xukumayaan maasla waayo qodobadooda dhan waa la jebiyey waxaan filayay 5 jeer 6 jeer inay qaadataan filayay laakiinse may qaadanin marka taas waxaa ku tusaysaa ama aan anigu shakhsiyan u arkaa in go-aan hore loo gaadhay inay tahay idinku marka waa maxay waxyaaba aad ku saluugsantihiin go-aankii maxkamadda waxyaabaha ku saluugsanay waxaa ka mid ah waxaan dhegeysanay doodii dadka celintii markii ay nimanka looyariska iyo xeeladayaasha doodayeen dee waxay tuseen oo ay ku qanciyeen laakiinse garan way ku qanciyeen inuu ninkanu dembi lahayn xamar kaga siisay cilmier kaga dhacay isagaaba sheegay marka xukumeyn leh qodobkii aflagaadada meesha kuma jiro oo waxa weeye waa la jibay laakiinse labadii qodob ee kale ayaanu ku xukunnay weliba saasaan ugu naxariisnay kuleey laakiinse I don't think waxaan u haystaa in ay political inuu arrinta political ay ka dhigeen oo hore uu u xukunaa awba ay doonayeen intaa inay xukumaan intaan maxkamadda la geen ka hor arrintani ma kala hadashay mas-uuliyiinta dowladda waa kala hadalay oo anigu shakhsiyan gurubaan ku jira aanu tagnay waxaa kaloo anigu lama socon loo tegey madaxtooyada waxayna waa sii daynayaan laakiin waxay anagu de waxaan aaminsanay ninkanu dembi galay laakiin anigu doctor mubaarak ahaan ma aaminsanin laakiin waxa waa aaminsannahay maxkamad baa la saarayaa maxkamadda aysan la eegin laakiin cabdimaalik waxaa lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay nidaamka u yaala somalilan marka idinku taasi ma idiin muuqatay oo dee muxuu nidaamka somaliland u yaalay maxamed lama tegi karaa waan maqlay maray lahaayeen horaa sharci looga soo saaray in xamar la tegi kara xamar maalin walba waa la tagaa xamar dembi maaha in la tago xamar dembi maaha dad dimuqraadiya baynu nahay sida la sheegayo qofku dee wuu ka hadli karaa fikradiisa wax wuu caaradi karaa wax wuu yeeli karaa cabdimaalik waa ninka lahaa somaliland bilaaduna cabdilmaalik waa samafalaha ugu weyn cabdimaalik waa nin power leh miisaan gaara buu leeyahay may ixtiraamin midna laakiinse kelmad ay haysteen iyo sharci ay haysteen xukun ay haysteen unba aan qabaa in aniga cabdimaalik lagu xukumo ugu dambayntii marba haddii la xukumay maxay tahay tallaabada xigta aad qaadaysaan wallahi waanu tashanaynaa waxaanu noqonay reeraanu noqonay awal hore waanu dee taana waa yar diidanayn laakiinse de imka waa tashanaynaa waxay somaliland waa qabaayil waa reero waa tashanaynaa marka waxaanu isla garanno baan go-aankeeda ku dhaqaaqayna cabdimaalik aad baanu ugu miisaan weyahay aad baanu u jecel lahay ummadoo dhan baa jecel soomaalia oo dhan baa jecel kolley sidaa kaga hadhi mayno